waxaanu joognaa magaalada Djibouti saaka waxaanu anbabaxaynaa dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan magaalada madaxdiisa Beledweyne waxaanu halkaas u tagaynaa inaanu soo eegno hawlgallada ciidamada Djibouti oo kamida kuwa AMISOM nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya ay ka wadaan gobolka Hiiraan ilaa 2,000 oo askari ayaa imika Jamhuuriyadda Djibouti ka jooga gobolka Hiiraan iyagoo marmarna hawlahoodu ay gaaraan ilaa gobolka Galgaduud waxaanu saakaysa sii raacaynaa generaalka ugu sareeya ciidamada Djibouti General Sakariye Sheekh Ibrahim iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada Djibouti diyaaradda imika waa la istaaray marka hawlahaanu soo eegaynana waxa kamid ah nabad ilaalinta inta badan aynu maqallo bal hadda sida loo fuliyo nabadda loo ilaaliyo ama ciidamada Djibouti ay nabadgelyada uga shaqeeyaan iyo hawlaha ay ka qabtaan dhinaca samafalka iyo dabcan sida ay u wada macaamilaan ama ay isu dhex galaan bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan iyo meelaha kale ay ka shaqeeyaan hawlgalka ciidamada Djibouti ay ka wadaan dalka Soomaaliya waxa loogu magac daray sida laga yaabo in badan inay maqasheen hiil walaal bal hadda hiil walaal sidoo u shaqeeyo ayaa barnaamijkani uu koow ka noqonayaa iyadoo barnaamijyadan aanu ku eegayno qodobadaan idin soo sheegay imikaanu aan babaxaynaa gordhoweyd baanu ka soo kacnay magaalada Djibouti safarkii aanu ugu jeednay magaalada Beledweyne General Sakariye Sheekh Ibrahim waa taliyaha guud ciidamada Jamhuuriyadda Djibouti General Sakariye aad iyo aad baad u mahadsan tahay in safarkan aan naga qayb geliseen ciidanka Djibouti markii ugu horeysay goormay tageen Soomaaliya waad mahadsantahay su'aashaadaasi waxa uu tagay markii noogu horeysay 2011 yaa tagnay 2,000 oo askari baa idinka joogay imika Soomaa 2,000 oo askari baa naga jooga oo lagu magacaabo 2 batayan baa lagu magacaabaa marka ma gobolka Hiiraan oo kaliya ku kooban yihiin gobolka Hiiraan oo kaliya ku kooban yihiin oo la yiraahdo qaybta afraad ama sektarka afraad la yiraahdo sektarka afraad marka la eego ciidamada AMISOM oo dhan miya ciidamada Afrika waa loo qaybiyay dalka Soomaalida annagu qaybta afraad baa nagu dhacday oo ka kooban 3 imika inta annagu aan joogno Ethiopian baa nala jooga laakiin annagu reer Djibouti inta aan joogno oo ku koobanahay sektarka afraad waa sektar aad u weyn oo marka ciidanka iyaga loo eego ku weyn haddana waxaan ka deganahay 3 meelood waxaan deganahay Beledweyne Boole Burde iyo Jalaalaqsi baan deganahay 3 meeloodna waa 3 meelood alxamdulillaah ilaahay maadii dadka degmada Soomaaliya degmada jooga isafgarashada أنا سافرنا أي نور دريد ومضى كله أو أنقول بدن أي كسوه هني إلى مدة أنجوني رامانت. جنرال سكرية بالهذا تلمان نقصي سنة كل بدي يكون يكوبي تونكي مركي عكشان قبل كهيران حالة دي السباعي. دي حالة مركا وحي هيد waxaan ku bilownay Beledweyne baan ku bilownay Beledweyne
waxay ahayd degmo aad u burburtay oo bad laga yimaada lahayn berrina aan baabuur lagaga tagaanay jirin diyaaradana meel aan fadhiistaanay jirin ayaan Itoobiya ka soo galnay markaa xaaladdeedu dee xaalad adag bay ahayd markaa aad iyo adkeyd xagga nabadgelyadana sidee bay ahayd nabadgelyadu ma wanaagsaneen khatar bay ahayd amba dadka shacbiga degan dhexdiisana ku ficnayn amba ciidamada yimid bayna ku ficnayn annaga waxaan iskaashanay oon istiirsanay ciidamada Itoobiyaanka ayaa nala deganaa ninba wixiisu sameynaya haddana waxna waa naga dhexeeyeen iyagu wax weyn bay nala qabteen shacbiga Soomaalidana wax weyn bay nala qabteen sidaa baan guul gaara ku gaarnay reer Jabuuti haddaan iyo sharaf gaara aan ku qaadanay ciidamadiina markaad eegto dhinaca ammaanka dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab gobolka Hiiraan siduu ka yahay imika gobolka Hiiraan waa gobolka ha targu ha jiraan oo way joogaan nimanka kan shabaabku way joogeen oo way ku jireen laakiin waa gobolka ugu nabadgelyo fiicnaa waa gobolka maxay ahaydeen wax weyn oo sharaf weyn ay uga soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed annaga gaar ahaan ay nooga soo hoyatay iyo raggii Itoobiyaanka ee nala deganaa halkaa dhinaca hawlaha aadminimada ama samafalka ciidanku ma ka qayb qaataan waxaan qabanaaba taabo shaqadayda koowaad baa taa ah xagga nabadgelyada ka sokow inaan waxaan wax la qabanaa oon taakulaynaa nabadgelyadooda waxqabadkooga danahooga si ay meel uga gudan lahaayeen wixii gargaar aan u geysanayno waa shaqada koowaad ee ciidanka Jabuuti ay meesha u degan yihiin General Sakariye meelo fara badan oo dalka Soomaaliya ah waxaa mararka qaarkood dhacda in khilaafaad beelaha dhulka wada degan ay soo dhex galaan in siyaasadda la isku qabto kasakow dagaalkan lagula jiro al-shabaab khilaafaadka dhinaca siyaasadda iyo iska horimaadyada qabaa'ilka dhex mara iyagu dhibaato intee lag bay idinku noqdeen gobolka Hiiraan sidaan horeba u soo sheegay gobolka ismaqalka iyo wadajirka iyo aaminaadda weyn ay naga dhaxaysa bay ahayd iminkana uu yahay khilaafka ka dhaca dhulalka qaarkood ka dhacaya kama u dhicin hadda ka hor muddo koobanoo dambe oo uu yimiday federaalkii baa la keenay ugu dambayn la keenay gobolka Hiiraan markii federaalku yimiday kolley wax yaroo khilaafaa dhacay wixiina waxay la tahay maanta wax ka jira ma jiro uu daba yaaqaystay wax yar baa dhacay waxaasina uu dhammaaday la tahay marka laakiin dee kolley waxa dee dad fidnad dhaliya lama waayayo oo wanaaga la dagaalamaya way jiraan laakiin alxamdulilah wax ilaahay loo sheega maha taasi safarkaagan maanta muxuu ku saabsan yahay safarkaygu wuxuu ku saabsan yahay maanta inaan indheeyo oon soo eego ciidanku isbeddelaa batalyankii ugu dambeeyey oo beledweyn iyo kala degan boole burde oo imanka naga sii maqan muddo bil ku dhow ayaan tagayaa inaan soo eego oon soo indheedheeyo siday u degan yihiin iyo xaaladdu siday tahay iyo magaalooyinkuba si dadku shacbiga iyagu dhexdooda siday isku yihiin ciidamada Itoobiyaanka iyo Soomaalida iyo isbeddellaa jira dadoo ciidanka Soomaaliduna kii hore maahna maanta waa ciidan muxuu ahaa shaqaynaya oo muxuu ahaa aad iyo aad loogu talagali karay buu maanta iyaa jira ciidamada Soomaalida ee degmada yaalla ciidamadaasi badidooda waxaa tababaray ciidanka Jabuuti tababaray Itoobiyaanku dhan bay xagooda ka baraan laakiin kuwa beledweyn jooga iyo kuwa boole burde jooga iyo kuwa Jalalaqsi jooga saddexdaaba ciidamada Soomaalida ee jooga maanta lagu talagali doonaa haddii la yidhaaho waxaa tababaray Jabuuti aad iyo aad baad u mahadsan tahay General Sakariye Sheekh Ibraahim waa taliyaha guud ee ciidamada Jamhuuriyadda Jabuuti safarka waxaa nagu weheliyaa saraakiil sare oo kale oo ka tirsan ciidamada Jabuuti
generaalka iyo saraakiisha kale wehelisaa isla maanta ayay Jabuuti ku soo noqon doonaan laakiin annagu muddo dhowr maalmooda ayaa sida qorshuhu yahay haddii aan la yidhaahdo aanu joogi doonaa gobolka Hiiraan gaar ahaanna magaalada Beledweyne barnaamijkuna halkaasuu inooga sii soconaya saacaddu iminka waxa weeye 7:00 subaxnimo Jabuuti waxaanu ka soo kacnay ilaa 6 subaxnimo duulimaadka Jabuuti ilaa Beledweyne ilaa 2 saacadood buu qaataa intiina aan garanaynin magaalada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan waxay ku yaalaan bartamaha dalka Soomaaliya magaalada Beledweynena waxa mara wabiga Shabeelle waa magaalo aad iyo aad ugu fiican dhinaca beeraha iyo xoolahaba marka goordhowan haddii aan la yiraahdo aanu ku degaynaa magaalada Beledweyne marka barnaamijkuna halkaas inooga sii soconaya موكاي ودمسرتو مسور قلان عرض ما قبطو هذا فوديو عشراتيرو ما أمامان موكاي ودمسرتو مسور قلان عرض ما قبطو هذا فوديو عشراتيرو ما أمامان موكاي waxaanu imika soo gaadhnay magaalada Beledweyne magaalada madaxda gobolka Hiiraan waxa weeye xarunta soonka afraad ee ciidamada AMISOM oo gacanta ay ku hayaan ciidamada ka socda dawladda Jamhuuriyadda Jabuuti magaaladan ayaa xarun u ah howlgallada ciidamada Jabuuti ay ka wadaan gobolkan Hiiraan magaalada xaggeeda aanu imika u soconaynaa sida arkayseen generaalku markuu soo degay waxa uu salaan ka qaatay cutub ka mid ah ciidamada Jamhuuriyadda Jabuuti iyagana xagga magaalada imika noo sii galbinaya imika waxaanu soo gaadhnay xerada ugu weyn ciidamada Jabuuti nabad ilaalintu ay ku leeyeen magaalada Beledweyne xeradan waxa la yiraahdaa Ceel Jaalle waxaana ciidanka Jabuuti sheegeen in markii halkan ay soo degeen meeshan ay ahayd meel banaana oo dhismayaashii iyo wixii imika arkayseen oo dhan iyagu ay halkan ka sameeyeen generaalkiiba imika kulan la yeelanaya taliska ciidamada Jabuuti halkan ku sugan marka bal waxaan isku daynaa inaan gudaha galno موكاي نعم عليسو لو بيي حلاغودي كورتغيان موكاي نعم عليسو لو بيي حلاغودي كورتغيان موكاي ciidankeenu halkan markii ugu horeysay uu ka howlgalay waxa weeyaan ciidanka Jabuuti waa ciidankii ugu horeeyay meel ka baxsan Muqdisho ka howlgalay waxa ka soo horeeyay laba ciidan Uganda iyo Burundi Uganda waxay timid 2007 bishii 3 Maars Burundi waxay timid sanadka dhamaadkiisii December 2007 Muqdisho oo ka howlgalayeen Muqdisho aan waan tagay 2010 waxa ay ka talinayeen oo kaliya tafiila Soomaaliya hareeraheega inta kale waxa ka talinaya shabaab ciidanka Jabuuti waxa halkan yimiday
labadii kun iyo koob iyo tobankii ayuu halkan yimiday waana ciidankii u horreeyay ka howlgalay meel ka baxsan caasimadda markaa wuxuu miftaax u noqday furo u noqday in muxuu ahaa ciidamada kalena ay ka howlgalaan meel ka baxsan caasimadda wuxuuna furo u noqday in muxuu ahaa waddanka laga saaro shabaab hiil walaal ayay ciidamadu la baxeen reer Djibouti waxaana u bixiyay madaxweynaha wuuna nala fadhiyaa ninkii horreeyay kolkii horreeyay ciidanka u madaxa ah waxay hantiyeen muxuu ahaa shicibka ayay hantiyeen qalbigooda iyo maskaxdooda yani waxa weeyaan shaqadii amniga ahayd kaliya kuma koobneen shaqadoodu waxay tuka ballaaran ayay ahayd saas ayay ku hantiyeen wadnaha iyo maskaxda shicibka Soomaaliyeed halkan degan soco waxyaabaha ay sameeyeen ee ilaa imika la wado ciidanku ay qabtaan hawshan la dagaalanka shabaabka iyo xasilinta amniga dhaafsiisan waxa weeyaan inay tababaraan ciidanka Soomaalida ciidanka Djibouti waa ciidankii ugu horreeyay ee tababara ciidan Soomaaliyeed waxay u gargaaraan shacbiga u gargaaraan horumarka halkan ka socda ayay ka qayb galaan airportka imika ka soo daadegteen waxa amnigiisa suga waa ciidanka Djibouti ayaa amnigiisa suga amniga kama hadlayo kaliya dibadda sameeyay iyaga sameeyay amnigiisa imika iyaga suga amniga dibadda un maaha shicibka dhoofaya iyaga shaqadii jaantaana ka qabta iyaga baara ilaa intuu diyaaraddu ka fuulayo halkan waxa nala degan xeradan aan joogno UN ayaa nala degan oo kula xafiis taasina waa joogitaanka ciidamada amisom halkan ay joogaan haddii ay joogan ma yimaadeen ta kale waxa weeyaan hay'adaha caalamiga ah halkan qaar baa xafiis ku leh badna way yimaadaan waxay isku soo haleeyaan marka halkan imaanayaana waa ciidamada amisom gaar ahaan ciidanka Djibouti موقتي وهاليدا لهبيه لصوفيو عش أفريقيا يقلوي موقتي موقتي وهاليدا لهبيه لصوفيو عش أفريقيا يقلوي موقتي kadib markii ay dhamaatay warbixintii taliyaha ciidamada Djibouti ee halkan ku sugan uu siinayay waftiga generaalka xukuumadda ciidamada Djibouti waxay wada galeen kulan gaar ah deedna kulankii gaarka ahaa annaga lanooma ogolayn oo warbixintii gaarka ahayd bay siinayeen deedna dabadaan uga soo yara baxnay halkan aan ku yara sugaynaa marka haddii la yiraahdo marka ay ka soo dhamaadaan ayaan isku day doonaa magaalada qaybaheeda kale iyo xariyaha kale ciidamada Djibouti ay ka howlgalaanba inaan wax idin ka tusno waxa jira dad rayid ah oo ciidamada Djibouti aan ka tirsanayn oo laakiin ciidamada la shaqeeya ninkana kamid ah magaca walaal Cabdullaahi Khaliif Dhaqane Cabdullaahi Khaliif Dhaqane Cabdullaahi markaagii hore aduma deegaankan ka soo jeedaa asalkaygii hore ha deegaankan aan ku dhashay oo ka soo jeeday laakiin Djibouti baad ku noolayd muddo dheer baa liigu yiri Djibouti aan ku noolaa muddo dheer aan ku koray waliba anigoo yaraan galay waan ku guursaday ilaahay awlaad iyo nabadgelyo iyo wanaag buu igu siiyay saadaradeedna hadda ciidanka ayaan la shaqeeyaa goormaad markaadna halkan ku soo laabatay waxaan ku soo laabtay xilligii 2014 aan soo galay aniga igu horeyn muddadii dheereed aad ka maqnay deegaankan maxaa ugu weyn iska bedelay baad oran lay wax badan ay isbedelay nabadgelyadii ay isbedeshay cabsi fara badan oo jirto waxyaabo badan oo isbedelay waxa la sheegi karaba ma haba mid iyo laba iyo wax la tirin kara ma habo wax aad u badan awal nabad baa jirtay halkaan aan ka lugan jirnay ilaa buulo barda ilaa xamar meeshaan rabno ayaan nabadgelyo ku tagi jirnay uga imaan jirnay ma jirto xamar oo 8 saacadood loo kala socon jiray 5 habeen loo sii kala dhaxaa hadda waqtigu sida u kala fogaaday oo adiga halka ka arkayabo marka gawaarida halkan ka baxda ama xamar ka imanaysa waxaad leedahay 5 habeen bay soo dhaxaan 3 habeen 4 habeen 5 habeen kolba wadadu sida ay ku tahay waxa la maraa dhul iska wada raf ah
ma jiraan waddooyinkii waagii siyaad barreen anigu yaraa waxaan xasuustaa subaxii adoo xamar ka soo baxa 8 saacna beledweyne yimaado haddana maba jirtaba haddii hadda aad baxdo caawa dhex baa tahay berri dhex baa tahay habeen dambe unbaad muqdisho gelaysaa markaa taa maxaa ugu wacan bay kula tahay ma jidka aad u burbursan ma dhinaca nabadgelyada nabadgelyo xumo way jirtaa jid maba jiraba jidku maanta oo dhan gaarigu marna dhinacan ayuu marayaa marna meeshuu saaka marayo galabta haddana meel u dhow marayaa taasna waa ammaan xumada waxa keenay in kolba luuq la isku toosiyay iyo waddo la isku weecweeciyo ayaa ugu wacan inuu waqti dheer qaato waxaad sheegtay inaad halkan ku soo laabatay 2014 intii ciidamada Djibouti halkan ay yimaadeen maxaa ugu weyn ee iska bedelay baad oran lahayd wax badan ayaa isbedelay abni badan magaaladan oo aan habeenkii maahina maalintii xataa la furi karin albaabada ayay Djibouti yimaadeen waxay hirgeliyeen inay bulshada iskugu wacaan in ganacsatadii la nooleeyo in subaxii ma arkaysaa qof walba meheradiisii oo furto ilaa caawa 5 saac oo habeenimo inay meheradu furan yihiin oo cabsidii ay ka baxday dadkii ee hay'adihii samafalka oo dhan ay shaqayn karayaan eryadan oo dhan in ammaankeedii uu heersan yahay garoonkii diyaaradda la furay Soomaalidii la iskugu wada wacay la tababaray la qalabeeyay ciidan laga dhigay maxaas ay joogaan buulo barda joogaan jalalaqsi joogaan beledweyne joogaan intaasba ciidanka jamhuuriyadda Djibouti ah hirgeliyay aad iyo aad baad u mahadsantahay ninkan askarigii wuxuu ka mid yahay ciidamada nabad ilaalinta ee jamhuuriyadda Djibouti ka jooga magaalada beledweyne tixgabaya baad ii sheegtay inaad hayso oo maxay ku saabsan tixgabaya ku saabsan waaqic maanta halkan aan joogno ku saabsan waa tay bal hadda tixdaan kula wadaagno halkan ciidanka jooga hilkaad iyo hilsayg waxaan ku heshiinay hadhaagayga shabaab ka haybaysani mayne waa inaan hareeraha aan ka marno dhammaan ay hubka keento afrikay idilkaaba afriku taamanay gabakan afrika ayuu ka hadlayaa afrikay idilkaaba kanikii ugu aariya goormad aana qabiil aqligaa kor u dhaafi waxa duul la yidhaahina waa wax aad u dambeeyo oo qaranka uu dumiyaayo horumarka uu la degaayo geesiga uu daldalaayo haweenka uu dallagaayo da'yarta soo kori maantana maskaxdu ka dila dunidii iska dhaaftay ee isku duubni ka raacdayna hore bay u durgeenoo hawadaabay dul mareenoo dayaxayba degeenoo daalkii way ka nasteen afrikuu ku dambeeyey oo uu la daadegay maantoo dunidii way ka hadheen afrikaanka dushiisa isku soo wada duuboo halkan buu ku dambeeyey dawladdii dhexe qaadayoo dib loo soo qaban waayeyoo dadkiina uu kala geeyeyoo dil unbaa ka dhaxeeye ilaahow ka dulqaad ilaahow ka dulqaad ilaahow ka dulqaad dalkan maanta aan joogno waagii uu dawladaha dugsoenow calankeenna waagan gaalka ka doonnay bay dadaal noo fidiyeenoo ku ka daahaya mahiye sidiiba u damqadaayo dadaalkii baan ku jiraa ilaahow hay dayrin ducadaana ilaahow hadna dayrino ducadeedana ilaahow naga aqbal kolkaa waxaa jirta saaban intaaba aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaanu ku sugannay magaalada beledweyne ee magaalo madaxda gobolka Hiiraan booqasho kastoo lagu yimaado magaalada beledweyne waxa waajiba sharafna in lala kulmo ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble ugaas aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad naqaabishay qofka hadduu marti yahay waa waajib cidda mas-uulka ka inay qaabisho Soomaalidu dhaqan gaar ah ay leedahay meel kasta ay joogto waa ka duwan tahay dadweynaha kale annagu Soomaali haddaan nahay waxaan leenahay dhaqan gaar ah cid kastoo marti oo timaado meeshii oo duub joogo waa inuu soo dhaweeyo qofkaas socotada waa wax waajiba
ugaas xasan mar kale aad iyo aad buu mahadsan yahay sida sawirkan ka muuqata dad fara badanna ay ka warhayaan ugaasku waxa uu ka soo jeedaa saldanad aad iyo aad u fac weyn wuxuu ku abtirsadaa 19 ugaas oo isaga ka horeeyay ugaas xasanna waxa uu noqonayaa ugaaskii 20aad ee deegaankan ugaas xasanow 19 ugaas baa ka horeeyay taariikh intee lag bay saldanadu dib ugu noqonaysaa taariikhdu inkastoonan haynin sax laakiin waa ilaa 600 sano 700 sano waa hadda maxaa soo baxay waxa soo baxay in duubku uu noqday bililiqo ya waxaad arkaysaa hal jifo ma aha magac guud laakiin jifo 4 duub 3 duub aan leenahay kule waxaa isweydiin u baahan marka war ninka 20 fac duub soo hayay iyo nin US la socday way isla jaan qaadi karaan Soomaaliya la weydiinaya ugaas xasanow muddo intee lag baad imka xilka haysay adigu waxaan hayay 2 sano iyo maalmo awal waxaad ahayd nin shaqaalaha dawladda ka tirsan oo iska shaqaysta oo sarkaal ahaa marka xilkan aad qabatay iyo noloshaadii hore maxay ku kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin oo xilkan aan qabtay waa ka culus yahay kii hore shaqaale dawladeed ahay marba meel baa la bedelayay waa shaqaynay tii hore iyo tanaa culus sababta oo mas'uuliyaddu waa ballaaratay hadda laakiin hore mid yaroo kooban oo shaqaalanimo ku eg bay ahayd laakiin hadda shaqaalanimadii ma jirto haddii lagu yiri duub baa tahay way ballaaratay waxay saamaynaysaa Soomaali oo dhan waxay saamaynaysaa bini aadan oo dhan cid kasta cadaan madow gaduud cid kasta oo meeshaad joogto kuugu timaado waxay mudan tahay waa inaad marsiisaa bini aadannimada laakiin adigu reer hebelaa tahay iyo adigu waxaad tahay cadaan iyo adigu waxaad tahay madow iyo malax cid kasta oo deegaankaada kuugu timaado waxay mudan tahay oo waajiba waa inaad marsiiso beelaha kale Soomaalida sida aad adiguba sheegtay ugaas xasanow baryahan dambe waxa aad iyo aad u batay in hogaamiyaashii dhaqanku ay ciidda ka bateenoo reeraha qaar ay yeeshaan 4 iyo 5 iyo 6 iyo ka badan adiga beeshaada taasi ma dhicin miya maya ma jirto annagu ka jira Australia iyo ka jira Mareykan iyo ka jooga Yurub iyo kan jooga dalka gudihiisa annagu taynu waa hal laba hataa ma dadaa jira laba iyo saddex iyo afar iyo way jiraan waxaad arkaysaa hal jifo hataa magaca guud ka imow hoos jifada abtirsiinada meesha ku dhamaato oo kula 4 duubaan leenahay say u suurtoobi waay maya annaga waa halkaasoo dow dhinto cid kalaa loo duubayaa intaasaa hogaaminayso ugaas xasanow waxaan ka warhayaa inaad aad ula socoto dee taariikhda saldanadda sidii waayadii hore ay ahayd iyo imika maxaa ugu weyn iska bedelay baad oran lay saldanadu waa noocahay saldanadu waxa waaye waa isbedeshay beleelaqadii badatay sadana ma la beleelaqaystaa sadana inay ummaddu ku doorato iyo inaad xoog ku qabsato labada mid waa ya laakiin sadana la qaybinayo la leeyahay reer hebel iyo jifada abtirsiinada meeshii ku dhamaato sadana ma looma baahna because dhibaatada la kordhiyay ma ogi waxba leesuma soo aruurin dadkuna wuxuu u baahan yahay in la soo aruuriyo oo la isu keeno oo aan la kala firdhin laakiin haddii sadanada la ballaariyo dadku waa kala tegaya marka halkaas waxa ka imaan kara dhibaatooyin ugaas inkastoo Soomaalidu guud ahaanba dhaqanka ay ka siman tahay haddana waxa jira waxyaabo ay deegaamadu ku kala duwan yihiin idinka saldanadiina waxyaabo u gaaro xagga xeerka tusaale ahaan ma jiraan maya Soomaali waa Soomaali meel kasta ha joogto Soomaali waa Soomaali dhaqanku waa isku hal ma kala duwan dabeecooyin yaryar oo laga yaabo lagu kala duwan yahay inay jiraan laakiin guud ahaan marka la yiraahdo Soomaali dhaqankeedu waa hal
markay beelaha wax kala gaadhaan tusaale ahaan yaa furdaamiya intan hadda anigu joogay wixii karaankee waan qabtay wixii dhex maray dadkana waa furdaamiyaa odayaal culummo dad badan oo aqyaaraha jooga meel walba dadkaas intii wax qaban kartaan la kaashadaa wixii aan qaban karnana waa qabanaa ilaa hadda wax aanan ku feelgarownayna ma jiraan ilaa hadda intaan joogay 2 sano wax badanna waa qabanay wax badan oo aan qabanna way jiraan oo bendino ah oo weli u baahan in la xalleeyo ugaas haddii lagu weydiiyo baahida ugu weyn ee maanta magaaladan beledweyne ama guud ahaanba gobolka hiiraan ka jirta maxaad ku tilmaami lahayd waxaan ku tilmaami lahay biyo la'aan dad badanaa laga yaabaa inay garan waayaan marka aan leeyahay biyo la'aan macnaheedu shuban biyoodkii kal hore sanadkii hore beledkan waxaa ku dhintay 180 qof ayaa shuban biyood u dhintay webigu waa guran yahay biyihii nadiif ma aha dadkii hadday cabbaan yah shubanaa imaanayo shubankii daawo uma hayso biyo nadiifa ma hayso war annaga waxa noogu daran horeyna waan u sheegay haddana waa sheegayaa bal wax kaleba yeelkooda waxaanu leenahay biyo waa in loo qodaa ceelal kal hore xamaraan tegay 3 bilood baan joogay dawladda waxaan weydiiyey in aanu helno biyo yeel 3 bilood markaan fadhiyay waa iskaga soo tag waa iska soo noqday anoo waxba sidii ilaa hadda biyihiina waa noo taagan yihiin marka ugaas ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed ee barnaamijkan daawanaya meeshii doonaanba ha joogaan maxaad ku oran lahayd waxaan ku oran lahaa qof kastoo Soomaaliya mas'uuliyadda saaran meel kasta ha joogo dibad ha joogo dalka ha joogo qof kastoo Soomaaliya mas'uuliyadda saaran mas'uuliyaddaas maxay tahay waxay tahay magaca naga dhaxeeyo qofka Soomaaliga oo Australia la yiri waa u dambaysaa adduunyada qofka Soomaaliga Australia ku nool oo Soomaaliga hadduu ceeb sameeyo Soomaali waa leeyahay laakiin la dhihi maayo waa hebel marka cid kastoo Soomaaliya waa inay ku tala gasho ama ay ilaaliso magaca Soomaalida sababta oo ah waxa naga dhaxeeya waa magac cid kasta ha ogaato qof yar qof weyn qofku mas'uuliyad markuu qabto 3 qodob baa imaanaya waxa la yiraahdaa war hebelow farxadiyay wax ka halay fudeednayo wax ka halay xasidnimanayo wax ka halay qof kastoo Soomaaliya oo mas'uuliyad sheeganayo 3 qodob baa hortaal 3 qodob ninkii ka gudbaa nasiib ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble aad iyo aad baad u mahadsantahay sharaf bay tahay inaynu ku kulanno magaalada beledweyne